Donald Trump waxa uu qaaday tallaabo ay soo dhaweeyeen Soomaali badan waxana saameynaya ku yeelanaysa arrintan kooxaha argagixiso ee ka soo horjeeda jiritaanka dawladnimada Soomaaliya iyo madax banaanida dalkan dhinaca kale arrintan waxa ay noqotay mid si weyn loo hadal hayo iyadoo durbaba ay bilaabeen warbaahinta caalamiga ah inay arrintan aad u faaqidaan saameynta leegayo ku yeelan doonaan shabaab iyo Daesh tallaabada cusub ee Mareykanka xilli ay jirtay walaac badan oo la qabay oo ku saabsan in Trump ciidamadiisa uu ka bixiyo Soomaaliya barnaamijka taxliilka ah ee caawa ayaad ku maqli doontaan arrintan dhinaca kale wadamada Carabta qaarkood ayaa walaac ka muujinaya tallaabo cusub oo Mareykanka qaaday yaab iyo anfariir ayaa ka soo haray Carab ku sirtay maanta magaalada Qaahira oo uu ka mid ahaa xogayaha guud ee golaha jaamacadda Carabta laakiin Masar ayaa iyana war kala soo saartay xilli Trump uu wali si weyn u saameynayo wadamada Carabta mustaqbalka bariga dhexe iyo geeska Afrika ayaa barnaamijkan si gaxisada ee ka dagaalama Soomaaliya ee hadda wajahaya culayska adag iyo dagaalada xoog leh kadib dagaalada aan loo kala kicin iyo waliba rasaasta xoog leh oo ay wajahayaan xilligan ayaa mar kale waxa ay dareemi doonaan culays xoog leh kadib markii hadal Soomaalidu ay soo dhaweeyeen uu bartiisa X ee hore loo oran jiray Twitter uu ku soo qoray madaxweynaha cusub ee dalka Mareykanka Donald Trump amar ayaa la siiyay ciidamada Mareykanka waxaana la faray in ay duqeymo ku sameeyaan goobaha iyo godadka Daesh ay ku dhuumaalaysanayaan iyo sidoo kale kooxaha argagixiso Trump ayaa qoraalkiisa ku yiri waan idin heli doonaa waanan idin dili doonaa waxa uu sidoo kale Trump sheegay in marka uu eegay duqeymaha iyo dagaalada halkaasi ka soconaya la bartilmaameedsan doona kooxaha Daesh oo iyaga abaabulaya weerarada lagu beegsanaya buu yiri Mareykanka danihiisa iyo kuwa gacan saarka nalale ee gobolka ee Soomaaliya ku sugan arrintani waxay ku soo aadaysaa iyadoo buuraha caalmiskaad ee gobolka bari ee Puntland ay dagaalo adag oo faraha looga gubtay ay ka soconayaan isla markaana Daesh uu dhabarjab xoog la ka soo gaaray kadib markii ciidamada Puntland ee hadda buuraha fananaya ay godadkii ay ku jireen Daesh ka saareen isla markaana kooxo badan oo ajnabi ay ku dileen weerar ay sameeyeen sida laga soo xigtay mas'uuliyiinta sarsare ee Puntland oo la hadlay warbaahinta waxa sidoo kale oo hadalkan Trump uu bixiyo uu ku soo aadaya iyadoo ay Puntland ku dhawaaqday wajigii labaad ee dagaalka sifaynta argagixisada Daesh sida uu madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani kol hore uu u sheegay warbaahinta dagaalkan soconaya waxa uu yahay mid ballaaran waxaana sidoo kale uu ku soo aadayaa hadalka Trump oo caawa bartiisa X ku soo qoray iyadoo gobolka Hiiraan gaar ahaan deegaanada jiinka webiga Hiiraan ay ka soconayaan dagaalo xoogan isla markaana la soo warinayo kooxda shabaab inay godad ka dagaalamayaan ciidamada deegaanka ee macawisleyda loo yaqaano iyo kuwa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyana ay hareeraha ka taagan yihiin godadkaasi isla markaana ay ku liishaamayaan rasaasta ka baxaysa qoryaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo kuwa macawisleyda ay wataan waa dagaalkii ugu adkaa ee hadda shabaabka iyo Daesh ay wajahayaan sanadkan 2025 labadan koox ee argagixiso uma ahayn sanad fiican dagaalo xoog la ayaa bilowday weeraraduna waxay noqdeen mid aan loo kala kicin oo godadkooda lagu beegsanayo saacadihii ugu dambeeyay wararka laga helayo furimaha dagaalka Puntland iyo sidoo kale kuwa gobolka Hiiraan ka soconaya waxay tilmaamayaan in labada ciidan ee Puntland iyo kuwa ka dagaalamaya Hiiraan ee macawisleydu ay guulo waaweyn ka gaarayaan isla markaana horumar ay ka sameynayaan dagaalada ay galayaan kooxaha la weerarayo ee argagixisana ay dib u gurasho weyn ay sameynayaan laakiin hadalka Trump waxa uu leeyahay marnaba ma cafin doono kooxahan ciidamadeena waxay noqon doonaan kuwa weerarka waday isagoo dhaliil u jeediyay madaxweynihii uu kursiga kala wareegay ee Joe Biden waxa uu yiri tallaabadan inuu hore u qaado ayay ahayd in uu xilliganba soo gaarsiiyo ma ahayn waxay ahayd ciidamada Mareykanku mar hore kooxahan in ay dubtaan hadalkani waxa uu noqonayaa mid Soomaalidu ay soo dhaweynayaan walaaci laga qabay in ciidamada Mareykanka ee Trump uu kala baxa Soomaaliyana waxay u eg tahay Twitterka caawa uu soo qoray inay soo gabagabeynayso sidaasi qubarada ammaanka ayaa ku doodaya tallaabada Trump uu qaado waxay kula muuqato qaybta hoose ee faallada noogu soo qor haddii aan dhinaca kale eego
maanta shir xasaasi ah ayaa ka dhacay magaalada Qaahira wadamo fara badan oo carbeed ayaa halkaasi ku kulmay Masar ayaa qayb ka ahayd Sacuudiga waa uu fadhiyay Jordanna madasha kama maqnayn waxaa sidoo kale goobta ku sugnaa xogayaha guud ee jaamacadda Carabta waxay ka arrinsanaysaa haddii la yiraahdo qeyrka soo loo xiro waxa ku xigta adigana soo qoyso haddii qasal la barakaciyo Falastiiniyiinta ku sugan maxaa diidaya wadamo fara badan oo carbeed inay tani saameyn doonto Carabtu waa shireen waxay yiraahdeen hadalka Trump inagu ma qaadan karayno in qasad dadkeeda la saarana wax suuragal maaha Masar iyo Jordanna albaabada inay furaan waa ku adag tahay culayska halkan ka imaanaya waxa uu noqonayaa dagaalka gobolka inuu sii baaho sidaa daraadeed Carabtu waxay yiraahdeen annaga go'aanka Trump uu qaatay suuragal maaha inaan fulino sidaa daraadeed annaga waxaan dhisaynaa dawlad adag oo Falastiina wana aqoonsanaynaa inta markay dhacday war kale oo weyn ayaa soo baxay oo isna saameyntiisa leh warkan waxa uu ahaa in madaxweynaha dalka Masar General Abdel Fattah al-Sisi uu taleefanka ku wacay dhigaysa dalka Mareykanka Donald Trump waxa uu ku yiri Trump oo Masreemow waxaan isla xallin doonaa arrinta bariga dhexe waxaan jecel lahay inaan booqasho kugu soo dhaweyno hadalka madaxtooyada Masar caawa ay sii daysay wasiirka amuraha dibadda Masar uu ku dhawaaqana lama sheegin in wixii Carabtu ay ku shireen Trump loo sheegay isla markaana go'aankaasi Carabtu ay bixisay hadda Carabtu waxay leeyihiin qubarada wax falanqeynaya xaaladooda waa ashunku adin waxay leeyihiin macad baa cunis leh masacar ayaa ka tagis leh ujeedaduna waxay tahay ma Trump ayaan raacnaa oo qasamiyaynu bixinaa sanadkan 2025 ee qarnigan haddaynu ku jirno mase waxay noqon doontaa in talaabo abaabulan aan ka hor qaadano Carabtu hadalkoodu waa wacad yahay hadda waxay leeyihiin taasi ma qaadi karno laakiin wax kasta waxay ku xiran yihiin qaranka Mareykanka iyo Donald Trump talaabada uu qaado laakiin mid kale oo ka weyn ayaa jirta waa rabitaanka Falastiiniyiinta iyo waxa ay doonayaan waana dhulkooda adiga ayaan ku weydiinayaa yey kula tahay taasi inay ku guuleysan doonto iyana qaybta hoose ee faallada iyo commentiga noogu soo qor akhyaarta nala socota muuqaalkii caawa ugu dambeeya barnaamijka Barrow Show intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa tan iyo tabinteena berri